waxaa guda gelaynaa walaalaha qaaliga ah daweyntiiba guda gelaynaa walaalaha qaaliga siyaabaha laysaga daweeyo oo looga guuleysto iyo madaafiicdii au adeegsan lahayd inaad kula dagaalantid iyo maasha allah tabaaraka raxmaan haddaa rabtid inaad ka wada guuleysatid oo baabi'isid waxaasoo dhan walaalaha qaaliga ayuu wax hadday sixirta hadday ilta hadday xasida hadday mas tahay hadday masul caashiq tahay hadday jiban tahay waxaasoo dhan dhulka inaad la sintid haddaa rabtid sida isku dawey walaalaha qaaliga ah ilaahay subxaanahu watacaala asagoo ka hadlaya shayaadiinta walaalaha qaaliga ah wuxuu ilaahay leeyahy waimaa yansaqannaka min ashaydaani nasqun فاستعذ بالله أيها الله سبحانه وتعالى إنه سميع عليم إلهي سبحانه وتعالى يا مد وحمق عليم نكو إلهي هدي الشيطان كو إذا وسواسيو أما إذا صور أما وحياله إذا كو سببه قف مركي السحر ولا لها خارجة شياطين بلو أذيك سنة سماها مركي هدي درين ندس الدرين تي ولا يلقو أذيك سنة هردو الغول وما يركس الغول وسواس الغول وحيالها صدان حنون الغول وحا حدا درين تو إلهي سبحانه وتعالى ما ينقل أيها الله سبحانه فاستعذ بالله أيها الله سبحانه وتعالى إنه سميع عليم إلهي سبحانه وتعالى وامد وحمقلا ogna ilaahay subxaana watacaala garanaya waxa lagu sameeyey meesha waxaagi yaalaan sida lagu dhibaateeyey cidda ku dhibaataysa ilaahay baa caliim ku ah subxaanahu watacaala walaalaha qaaliga marka ilaahay subxaanahu watacaala magan gal oo ilaahay xaggiisa u cararo ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay fafiruu ila allah ilaahay subxaana watacaala hadday dhibaato ku qabsato ilaahay xaggiisa u carar arrimahaaga ilaahay u sheego ilaahay tawakul diinta xaggeeda u carar qur'aanka sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam inay u carartid baa rabo walaalaha qaaliga ah marka waxyaalaha ugu muhiimsan walaalaha qaaliga ah ee la isku daweeyo waxa weeye qofku inuu ictiqaado ilaahay subxaana watacaala inuu shaafi yahay ilaahay subxaanahu watacaala baa shaafi ah raaqi kasta haddaa u tagtay si kastoo isku daweysid haddaadan ictiqaadsanayn ilaahay subxaana watacaala inuu ku daweeyo one day ilaahay 1 minute buu ilaahay subxaana watacaala kaaga qaaday ayu dhibaato kastoo culus oo dusha kaa saaran raxmaanku 1 minute buu kaaga qaadi karaa laakiin waa inaad ictiqaadsan tahay ilaahay baa shaafi ah dhibaatada kaa saari kara ilaahay xaggiisa u carar ilaahay magan gal walaalaha qaaliga ah waxyaalaha ugu wanaagsan ee la isku daweeyana waxaa kamid ah walaalaha qaaliga macsidii in laga dheeraado macsida iyo walaalaha qaaliga meelaha macsida lagu hayaba aad ina uga dheeraatid way haddaa xanuunsan tahay cuduradaas qabtid macsida ka dheerow iyo meel macsi lagu hayo ka dheerow waayo macsida shayaadiinta sababa walaalaha qaaliga ah dadkan waxay rabaan mid ay maxay sheeg macsi ku sababaan ay dhumiyaan way inoo dhaarteen walaalaha qaaliga waa dhuminaya meel walba ka soo gelaya buu dhan dhahay shayaadiinta walaalaha qaaliga ah ibni aadanka markuu u dhaaranay walaalaha qaaliga ah marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala shartiisa naga qabtay macsida iyo meelaha macsida lagu hayo waa inuu ka dheeraado qofka hadduu xanuunsan yahay meelaha macsida waa inuu safariisan dadka macsida badan ee xanta badan waa inuu ka dheeraado ka fogaado markaas walaalaha qaaliga waa ka bogsanaysaa cudurada waxyaalaha ku xiga waxa weeye weesa qabka inuu qofku ku dadaalo lambar 2 weesada inuu qofku ku dadaalo walaalaha qaaliga lambar 3 walaalaha qaaliga salaada inuu qofku waqtigeeda ku tukado salaada walaalaha qaaliga waxyaalaha ugu cajiibsan ee qofka xifdiya way as-salaatu tanhaa 'anil fahshaa'i wal munkar ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadu munkarka iyo fahshaaga iyo quranka ka dheeraynaysaa salaada waxaanu fahshaaga iyo munkarkaas uu kamid yahay walaalaha qaaliga ah qurunka ah marka hadda salaada ku dadaal oo waqtigeeda ku tukato walaalaha qaaliga ah salaada marka salaata cala waqtiha ayuu nabiga calayhi salaatu waqtigeeda lagu tukado marka waqtiga salaada sa u ilaasho waqtigeeda dumarku marka guryahooda ku tukanayaan salaada saa markii loo aadaamo ha tukadaan walaalaha qaaliga aqinka haba sugnina salaada waqtigeeda ugu taagaya hadii la adimo sidoo kale walaalaha raggu masaajida ha ku tukadaan salaada ku dadaala walaalaha qaaliga ah haddaa cudurkaas qabtid ba iyo mar walba salaada lagu dawo waxyaalaha lagu daweeyaa laga sheekeynaya haddaa cudur ruuxi qabtid salaada waqtigeeda ku tuko sidoo kale sunnooyinkii ku dar salaadaha sunnooyin baa la socdo walaalaha qaaliga sunnooyinka ku dar sidoo kale sunnooyinka soomka ku dar sadaqada ku dar sunnooyinka dee waxyaalaha macni waajibaadka lagu ah sunnooyinkoodii baa soo hoosgelaya waa inuu nawaafishi ku daro qofku hadday tahay salaadii markaa sunnooyinkeeda ku dar soonkii sunnooyin ku dar maxay sadaqadii maxay waa inaad la baxdaa sadaqo haddii aad saka bixisin waa inaad ku dadho macnihi sakadii wax dheeriyo sadaqa haddaad bixina sadaqada inaad ku dadaashida wax sakada kala baxda aad haysanba sidoo kale walaalaha waxyaalaha lagu dadaalo waxa kamid ah oo qofka laga rabo uu ku caafimaaday witrkii inuu witrka tukado qiyaamul leylka inuu ku dadaalo salaatu duxadii sujuud inuu ku duceysto in ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhibka ka qaado
salaada walaalaha qaaliga ah haddii aadan macnihii soo kici karin habeenkii gelinka hore tuko witrkii tuko qiyaamuleyl tuko salaatu duxaa salaad cadiima iyadana tuko sujuuda ku ducayso ilaahay bar inuu ilaahay dhibaatada kaa saaro waxaan ku hayo ilaahay subxaana watacaala inuu kaa saaro ilaahay subxaana وتعالى ويديسو sidoo kale walaalaha qaaliga waxyaalaha lagu daweeyo waxa kamid ah adkaartii sabaax masaa inuu qofku ku dadaalo adkaartii hurdada adkaartii guriga marka laga baxay adkaartii guriga marka la soo galayo adkaartii musqusha ama xamaamka marka la galayo waa inuu ku dadaalo adkaara ugu muhiimsan walaalaha qaaliga waxa jira waxyaalo awliyaat la dhaw walaalaha qaaliga qofku markuu magaalada aado oo soo noqon waxa shayaadiintu way soo raacay guriga markuu soo galay baa liya walaalaha qaaliga oo ku soo galin adkaartii guriga lagu galay bisinkana uu qabsan walaa la soo galayaan waxiisa dhan wala isticmaalayaan meelaha ugu daran weeye guryaha siday ku soo galaan weeye waxa la dhahay xadiis waxa jira nabiga kaleey salaatu wasalaam ka sugan waxa dhahan shayaadiintu way ooyayaan marka qofku guriga ka xirto oo adkaarta guriga ku soo galay oo akhriso guriga sama soo gali kara waayo haduu soo galo intadii bay la cuni lahaayeen gurigiisa la seexan lahaayeen afaarihiisa dhan bay la isticmaali lahaayeen walaalaha qaaliga inta waa meelaha u ka ooyaan oo wuxuu dhahayaa shaydaanku ilaahay anigana naar ba gelinaysaa qofkaana macnaheedu jannu galaya seejana ku galaya aniga waa dhibo وين يا بالله مركز كل يسوق أذكارها بركور عجائب تقول مركز لقى بحيو waxaa la dhahay labada dhinac walaalaha qaaliga ah waxa tuban maxay dhinaca bidixdaana waxa la yiraahdaa shayaadiinta dhinaca midigtaana malaa'ikti marka guriga ka baxday hadaada ducadii guriga marka ka baxaysa akhrisan waxa ku maxay ku raacaya shayaadiinta hada akhrisatna malaa'ikta oo ku ilaalinaysa sida axaadiista nabiga kaleey salaatu wasalaam ku cad walaalaha qaaliga ah muujeeda marka way ku farxayaan maxay inay ku dhumiyaan inay waxaan sixirada adeegsan waxa dhan wadada ayaga yeesheen adigana inay ku yeeshaan bay rabaan marka adkaarta ku dadaan walaalaha qaaliga si ku yeelan lahaayeen way marka adkaaraha way kala daran yihiin walaalaha qaaliga adkaaru noom adkaaru sabaax masaa maxay adkaarta marka guriga la soo galayo oo idinka ka soo sheekeeyay adkaarta guriga marka laga baxayo maxay adkaarta musqusha qofku markuu qubaysa jir qurux badan yahay shayaadiinta halkaas ka soo raacaan walaalaha qaaliga ilaahay baa ka maan galnay waxyaalaha ugu cajiibsan oo qofku isku daweynayo walaalaha qaaliga wax kamid suuratul baqara qofku inuu akhristo haddii sun aqoon u dhageysto walaalaha qaaliga sidoo kale dikriyadii xuska ilaahay subxaanahu wa ta'ala saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam istighfaartii xawqaladii dikriyadii kala tasbiixdii quraanka akhriskiisii sidoo kale waxyaalaha lagu daweeyo waxa kamid ah dhirta nabigeena calayhi salaatu wasalaam ka sugan sida xabad sawdada oo kale malabka oo kale timirta saytuunta oo kale olive oil ay dadka garanayaan waxyaalaha ka sugan nabigeena calayhi salaatu wasalaam walaalaha qaaliga waxaa jirta waxyaalo kaloo la tijribeeyay oo macnihii ayagana shaqeeya baa jira laakiin waxay u baahan yihiin dadaal waxa aan sugnayn dadaal iyo qofka cilmi inuu u leeyahay baa walaalaha qaaliga looga baahan yahay walaalaha qaaliga tusaale ahaan hadda dadka cilaajyada hagaajiya dad qaarkood daawooyin meesha intuu macnihii ka galay macnihii ganacsi waxyaalo khaldan soo sameynay maalin dhaweeto sheekh ka hadlay waxaa arkaya dad baa tubaako iyo maxay khamri iyo kaabigeel balaayay soo hagaajiyaan walaalaha qaaliga marka runtii adduun maanta fitan ama marayna oo macni wax walba ganacsi laga raadinaya laakiin wax ilaahay ka baqaya ay cabsida ilaahay ku tuhmaysid u tag wax wanaagsan ka gado maxay markaa ka gadanaysid weydii waxa laga sameeyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala walaalaha qaaliga ummadda islaamka qof walba meeshu ka tabani allah ka tiiriyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala walaalaha qaaliga inteena xanuunsan allah caafiyo inteena caafimaad qabtana allah xifdiyo walaalaha qaaliga khayr iyo farxad idin wada rajeynaya